safiirka dalka Taiwan u fadhiya Soomaaliland oo soo gaadhay magaalada Boorama ayaa waxa kormeer ku soo maray hospitaalka dawladda. kormeerkan waxa dhankooga ku weheliyay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland barasaabka gobolka Awdal meeyarka degmada Boorama waxaana hospitaalka mas'uuliyiintan ku soo dhaweeyay isku daa wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal iyo agaasimaha hospitaalka dawladda ee magaalada Boorama. barbilaba waxa kulan wada qaatay agaasimaha caafimaadka Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal way weheliyaan maamulka gobolka Awdal iyo degmada Boorama. intaasi kadib mas'uuliyiintan ayaa si wada jir ah u soo kormeeray qaybaha kala duwan ee hospitaalka dawladda oo markani laga hirgeliyay barnaamijka xogta baadhista caafimaadka waxaana assistant-kan cusub hospitaalka ka caawiyay dalka saaxiibka la Soomaaliland Taiwan.